Halkan waxa aan kaga hadli doonaa filim xiiso leh oo la yiraahdo Luke Stadkill. Waa kan filimkii daawo oo taxadir. Sheekada filimku waxa ay ka bilaabanaysaa goob hospitaal ah. Waxaynu aragnaa wiil dhalinyaro ah oo la fadhiya dhakhtarkii hospitaalka. Wiilka waxa lagu magacaabaa Marcus. Marcusna waa mid u sharaxaya dhibaatada caafimaad ee haysata naftiisa, isagoo ka cabanaya arrin aad halis u ah, isagoo ay dilayso qof kasta oo wajigiisa arka. Arrinka Marcus ma aha mid imika bilaabanaya. Aan dib u laabanno maalintii uu dhashay wiilkan, kasoo bixintii uurka hooyadii, isla markiiba waa mid galaaftay nolosha dhakhtarkii iyo kalkaalisooyinkii ka umulinayay hooyadii. Labadiisa waalid waxa ay mar walba ku qasbaan okyaale iyo waxyaabaha dadka dhaawaca lagu duubo. Sheekadii dheereed ee Marcus uu kaga faaloonayay qisadiisa. Dhakhtarkii cilmi nafsiga ayaa rumaysan waayay waxyaabaha uu ku hadlayay wiilkan yar, isagoo markaa ku qasbaya inuu iska furo waxyaabaha wajiga kaga xidhan. Isla markiiba Marcus waa mid iska furaya waxyaabihii wajiga kaga duubnaa. Dhakhtarkii beenta u haystay waa mid isla markiiba halkaa ku nafbaxaya. Halka wiilka labadiisa waalid ay yihiin mid aan ka fogeyn, isla markiiba waa kuwa soo gelaya qolka ay ku jiraan dhakhtarka iyo wiilku. Isla markiiba waxa ay arkayaan dhakhtarkii cilmi nafsiga oo halkaa ku nafbaxay. wax yar kadib waxa goobta imanaya booliska, iyagoo markaas baaraya sababta ka dambeysay dhakhtarka dhimashadiisa. Sidoo kale ma aha kuwa aad uga shakinaya wiilka. Maalmo kooban kadib waa mid la kulmaya mid ka mid ah asxaabtiisa oo lagu magacaabo Dan waa mid aad xariif uga ah shukaansiga. Marcusna waa mid ka codsanaya inuu la raadiyo gabadh uu xiriir la sameeyo si uu uga baxo kalinimadan ku haysata guriga. Habeenkii xigay Marcus iyo Dan waa kuwa markaas soo aadaya goob makhaayada. Halkaasna waxa uu Dan ku barayaa saaxiibkii gabadh ay iska barteen online-ka. Marcus dhibka haysta waa mid aan aad u hadal badnayn, halka isla markiiba aanay gabadhu ka helin Marcus wiilkan la yiraahdo Marcus. Intii ay goobtaas ku wada hadlayeen waxa imanaya gabadha saaxiibkeedii hore. Kadib waxa uu isku dayayaa inuu qaso shukaansiga ka dhaxeeya labadooda. Marcus gabadhii waxa uu ka codsanayaa inay kulmi karaan mar kale iyo in kale, laakiin gabadhu waxa ay ugu jawaabaysaa ma kulmi karno mar kale, oo halkaas ayay ku kala tegayaan Marcus iyo gabadhu. Marcus waxa uu go'aansaday inuu nafsadiisa dilo. Intaanu dilin ka hor waxa meesha ka soo baxday gabadha waxa lagu magacaabaa Alexis. Waxa ay Marcus kula talisay inuu istajiyo, waxa aanay ku qancisay inuu nafsadiisa dejiyo aanu iska tuurin buundada. Marcus waxa uu ka sheekeeyay qisadiisa, gabadhuna waxa ay uga sheekaysay qisadeeda. Waxa ay ku tir waxaan qabaa xanuunkaasna waa dhanka wadnaha. Marcus ayaa gabadhii ku mar labaad ma kulmi karna. Gabadhiina waxa ay ugu jawaabtay maya. Marcus waxa uu saaxiibkii Dan uga sheekeeyay gabadha uu la soo kulmay. Danna waxa uu kula taliyay inuu gabadhii daydayo oo uu ka daydayo meesha ay ku kulmeen markii hore. Marcus waxa uu soo aaday goob laga raaco basaska oo u dhaweyd meesha ay markii hore ku kulmeen, laakiin nasiib wanaag gabadhii way kulmeen mar labaad. Kadib waxa ay tegayaan suuq u dhawaa meesha. Waxa ay ka soo iibsanayaan macmacaan aad u fara badan. Kadib waxa ay imanayaan guriga Marcus iyo kadib waxa ay isfahmayaan waana isku soo dhawaanayaan. Muddadii ay wada sheekaysanayeen Alexis iyo Marcus, waxa ay isku dayaysaa Alexis in ay saaxiibkeed ku qanciso inuu iska saaro miyaaradda, laakiin Marcus waa uu ka diidayaa inuu miyaaradda iska saaro. Si kasta way uga qancisay inuu miyaaradda saaro, kadib iyada ayaa ka saaraysa miyaaradda. Isla markiiba waxa guriga soo galaya Marcus labadiisii waalid. Habeenkii xigay Alexis waxa ay ku dhaxaysaa guriga Marcus iyo isla habeenkiiba waxa ay ka codsanaysaa inuu iska saaro waxyaabahan wajiga kaga duuban, laakiin Marcus arrintaa kama yeelayo, waana uu ka diiday arrintaas. Subaxii xigay waxa ay soo aadeen goob dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. Marcus laakiin waxa uu sameeyay arrin. Waxa uu arkay hooyo aad u xanuunsanaysa. Waxa uu isku dayay in uu iska furfuro waxyaabihii wajiga kaga xidhnaa, laakiin hooyadii halkaas ayay ku nafbaxday. Laakiin maalinba maalinta ka dambaysa xiriirka ka dhaxeeya Marcus iyo Alexis uu sii wanaagsanaanayaa. Habeenkii xigay waxa ay tageen xaflad. Kadib xafladii waxa uu la hadlay saaxiibkii Dan. Intuu la hadlayay waxa meesha soo galay ninkii foodoyn jiray Marcus. Waxa uu ku kalifay inuu yar aflagaadeeyo, kadib waa ka yar caayay. Kadib waxa uu isku dayay inuu ka saaro maaskiga.
waxa uu ka saaray maaskigii waxaana halkaa ku dhimatay saaxiibadii Dan uu galaaftay wejigiisu. kadib waxaa meesha soo galay booliskii baa kaxeeyay waxaa xidhan Max, laakiin kumuu sii hakan xabsigii. waxa uu arkay saaxiibadii oo dhakhtar taala. waa uu imi saaxiibadii waxa ay ka codsatay in uu wejiga iska furo oo ay u dhimato si raaxa leh. wuu ka diiday Max arrintii waanu iska tegey. intaa kadib Max waxa uu tegay saaxiibkii Dan uu ka raali geliyay wixii meesha ka dhacay. waxa uu ga sheekeeyay saaxiibadii Max in ay ku jirto dhakhtar oo uu iskaga soo cararay. Dan waxa uu kula taliyay in uu tago saaxiibadii oo uu mar labaad la kulmo. saaxiibadii waxa ay ka codsatay in uu iska furo wejiga. marka Max waxa uu ka yeelay codsigeedii waxaana iska furay maaskii. halkiina ayay kaga baxday naftu saaxiibadii.